gabdhaha ajnabiga ah ee Soomaalida aan ahayn ee hay'adaha samafalka u shaqeeya looma ogoleen magaalada Muqdisho inay yimaadaan markii uu muxuu ahaa President Erdogan oo markaas ra'iisul wasaare ah iyo familigiisa ay yimaadeen oo xeriyihii barakacayaasha inta tageen carruurta Soomaaliyeed ay kor u soo xambaareen soo qaadeen oo kuwa jidka dhinaciisa ku ciyaaraya inta u degto madaxweynuhu ag fadhiisto dhaay xaalkooda ka warsado oo wixii ay baahida iyo dhibaatooyinka ay sheegeen in badan oo kamid uu ka jawaabay waxay ahayd dawladda kaliya ee mucaawanada dadka Soomaaliyeed ay siinaysay dawladda Soomaaliyeed u dhiibaysay oo dheysay dadkiina adika taqaanaan meesha baahida ka jirta adika taqaanaan waa tanaa qabta waa dalka kaliya ee maraakiib isdaba socoto 20 kun oo tan isdaba socoto mar walba u dhiibaayay dawladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha inta u dhiiba dhaay u qaybiya dadka adika garanaysan sida loogu qaybiyo sida u kala duruufo badan yihiin waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget supportiga ugu horeeyay dadka ugu horeeyay oo bangigeena iyo systemkeena dawladnimada lacag ku soo shubay ahayn oo yiraahdo socda waxaysta aaminaad qaata bangigeena dhaxal lacag geeyay ahayn lacag ku shuba maxaan ku raada markii amaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamka dhan uu noo soo gurmaday ayagana noo soo gurmaday si gaar ah noogu soo gurmado xariye inta dalka gudihiisa ka dhisay askarteena ku tababaray saraakiisheena qaaday maxaan ku iraahday ciidankeeda inta gudaha ku tababaray hadana wixii qalabeeyay qalab casri ah waliba si ayadoo barigaas waliba cuna qabatayna saaran dalka qalab lama sii kala la dhahay saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeena hogaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yaryar dalkooda ay ka yimaadeen intooda badan dalal kale oo walaala oo aanan saaxiiba oo aanan inkirin way jiraan waa dal maalintii aan u baahnayn noo yimiday dhibaatada mar kasta jirta dekedaan maamulkeeda dhib ku qabnaa waa idin maamuleen airborkan dhib ku qabnaa waa idin qabanayna magaaladan Muqdisho wasakhnaaga si aan u nadiifinay waa idin nadiifinayna gacantooda darawaliin ay baabuurta ku wada qashin ku qaadeen loo keen sidaas daraadeed waa dalka noocaas walaalayaal maanta marka argagixisada gudaha nagula diraan waxaad ogtihiin dhammaan dalkeena bad aad iyo aad u weyn ayaan leenahay badeena muddo 30 sano ma ilaashanin kalluunkeena iyo kheyraadkeena waa la dhacay wasakh waa lagu shubayay waxa sharci darraa oo dhan oo hub sharci darraa iyo balaayo sharci darraa oo dhan waa la marsiinay caalamku markii wax ayaga xanuujinaya ay yimaadaan waana garab istaagayeen sida burcad badeedkii oo kale intaasoo kun oo maraakiiba barada la soo diray burcad badeedkii la dagaalameen waa joojiyeen wax fiican ay qabteen wax aad iyo aad u fiican ay qabteen laakiin burcad badeedka markii la dagaalamay kalluunkeena waa la guranay caalamku maruu yiraaho xuduudihiina badda lama yaqaano waa xuduudihiina badda waa kuwaan dhahna waa la yaqaanaa waa UN ka soo register gareyn mar kale haddana lama waxayna in badeena kalluunkeena la daldalanayo oo la dhacayo waan ogeyn in badeena muxuu ahay la wasakheeyo waa ogeyn in badeena muxuu ahay hub sharci darra ay balaayo ay maraan oo dhan waa ogeyn waxaasoo dhan wax fiican ma ahayn laakiin cid naga kaalmayso oo si dhaba nooga kaalmaysa maanaan helin annaguna sida markaa waa kalluunkana waa noo soo curanayaa biru noo imaanaya arrimaan kalena midba maalin baan joojin doona maanta xaaladdu way isbedeshay dadaa yimiday dhahayo badyaa nus qaadanayna waaba qaadanaynaaba Kenya iyo annaga isqabsanay walaa dadka diriska saaxiibadan Kenya waxaan isku haysanay Kenya waxay leedahay dhulkan biyahan annaga iska leeyahay biyo Soomaaliyeed waa Soomaaliya iska laakiin waa qaadanayna nama dhahayn xuduudan isku haysan may intay martaa iyo may intay martaan isku haysan maxkamadda caalamka isla tagna maxkamadda waa soo kala saartay maanta annaga iyo Ethiopia waxaan taagan horta ma aha xuduud isku ma haysano 100 kilomitir dhul Soomaaliyeed inay soo marto badda Soomaaliya timaado oo qayb kamid ah qaadato way waxaan isku haysan waa u kaalmo weydiisanay waxaan kaalmada u weydiisanaynaa Ethiopia in la diriro ma aha dal kale in lagu duulo ma aha cid kale in la maxaan ku raadaay la dulmiyo ma aha danaheena dalkeena inaan difaacno in lagu kaalmeeyo dawladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaas oo asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kaalmeeya badeena sidaan u difaacno hadda maanta
turki soo duushayo Ethiopia ku duulayso ma rabo in la diriro ma rabo Soomaaliya gudaheeda in dawlado ajnabi ay wax isku diriraan ma rabo laakiin heshiiskani waa heshiis ka shaqeynayo dhaqaalaha badeena kalluunkeena iyo khayraadka badda inaan ilaashano ayuu Turkiga nagu saaciday kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashano wax kastoo sharci darro ah oo badeena ka dhacayo oo caalamka effect gareynaya haday burcad badeed tahay hub sharci darro ah oo la marsiinay haday tahay daraagis iyo balaayo haday tahay argagixis dhaxmaraysa haday tahay dhammaan inay nala ilaaliyaan waayo waxaan heshiiska kula galnay inaan dalka oo saddexaad aan ku duulno ama aan la dirano ma aha waan rajaynaynaa nimankan aan dariska nahay walaalaha reer Ethiopia inay kama dawladooda dadka reer Ethiopianka dalaad suma qabla darisaan nahay laakiin dawladooda inay ka waantoodo dhulkii Soomaaliya qaar qaadanaya inay tiraa oo aqliga u shaqeeyo waa rajaynaynaa walaad ayna imaan laakiin heshiiska maanta baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay waa kaas waa heshiis difaac iyo horumarin dhaqaale oo isla socda waay heshiiskaasi waa heshiis xayndaab heshiis waaye بروتوكول بدن إيه هشيسية بدنا كسر ركب من دونه أو كسر تفاصيل بدونه أو حين لكن هشيس كاس آخر كيس وحولها أو هدف قدام بطبعا سنة كبعد إيه وقت لما ده أون جارسيني وحيتاي أيضا بطء بيهن الدفاع كرنا يعلنه أنت كهورسنا ولا لها إن الدفاع عن بدأ أو برعة بدات كيو كلوميسك الشرع الدرضة إيه قوة محاول حيابها illegal activities كهؤلاء الشرع عن وافق سنين ودن inay nagala ilaaliyaan waaye dadka Soomaaliyeed dad dawladda Turkiga waa dad aan aamini karno ku aamini karno howlaha qaarkood cid kale maanta hadda heelano oo annaga shaqadaas idin qabalahayna maxaa dhacay dhahaysana ma jirto cid doonno diyaar ma jirto ma jirto marka waan raadinayna muddooyinkan dhan dal aan si bilateral ah oo gaar shakhsi ah intaan u leeyshino naga saacida amurahaas Turkiya waxay noqotay dalkii ugu horeeyay oo diyaar noola ah dalal kale inaan heshiisyo la galno oo aan arrimaha badda iyo xataa aan kala sii heshiinana heshiiskan ma xadidayo cid kasta oo danta Soomaaliya ay ku jirto waa la heshiinaynaa magaceeda kula galin walaalayaal dagaal ugu jirnay inaan dhulkeena argagixisada aan ka difaacno aan ka xoreyno maanta waxaan dagaal kale u galeynaa badeena inaan ka xoreyno kuwa maxaan ku raadaay argagixisada ama sharci darrada dawladda Soomaaliya shuruucdeeda ku xadgudbay shuruucda caalamkana ku xadgudbay mas'uuliyadda nasaaran ee caalamigana aan ku gudanayna hadii aan leeyahay heshiiska maanta baarlamaanka ka dhacay intaas dadka Soomaaliya waxa uu sheegayaa dhaqaale waa heshiis difaac Soomaaliya iyo Turkiga ka dhaxeeya dawlad kale iyo dal kale lagu nacbaynayo ama lagu colaadinayo ama lagu la dirirayna ma jiro aad iyo aad ayaa u maasantiin